iyadoon qofna salaamin hareerahana eegin ayay qolkeedii halhaleel ugu gudubtay sariirta isku halgaaday buugaagtii ay sidatayna koomadiinka dushiisay naxariis la'aan ku tuurtay qaar baa dhulka ku daatay weligoodba ha daateen yaa u jixinjixaya yaa arursanaya adimadeedii baabay ururin kari la'dahay waa taas labadeedii lugood midba sariirta ku dul xoortay iyadoo kabteedii wadata tii kale oo kobtii iskeed uga dhacdayna waxay ka lulataa sariirta qarkeeda bowdada waxaa ceego adag uga haya surwaalka kaakiga ah ee dugsiga weligiisba ha uga hayo yaa ka fojinaya yaaba ka xanuunsanaya haddaad isha kor ula sii raacdid waxaad arkaysaa shaati cad oo gacmogaab ah oo ay hoosta ka soo riixayaan laba naas oo dhowaan kobcay waxaa la moodaa in ay ka cabanayaan shaatiga turunsho la'aanta loogu dhajiyey weligoodba ha ka cawdeen yaa dulman mayaga mise guluusyada la moodo in ay sii go'ayaan kii doonaba ha dulmanaado yaa isugu tegaya qofkii u soo galaa wuxuu moodi lahaa ruux suuxsan ama mar hore mid gam'ay waa runoo indhaha way deensatay laakiin hurdo warkeed ma jiro indhaheeda beryahan hurda sooma booqan intay neef culus xoog weyn ku soo jiiday bay xoog weyn ku sii daysay ama ku celisay sidii iyadoo doonaysaa in ay ku soo xaaqdo dhibaatooyinka maskaxdeeda rasaysan waxay la ahayd dhibaatooyinkii ifka lagu uumay idil ahaantood in ay iyada dul saaran yihiin qof kasta dhibaatadiisu la culus isagaana isla jid leh noloshaaba sidaas ah markay indhaha isku qabatay bay maskaxdeedu isla hadalkii laba jibaartay dhib badana saan maan ku joogi karaa ilaahayo sideen waxyeelaa iskoolkanaaba iigu daran waxbarashow maan kaa gaaraa anigaba waa dhibaataysanahee macalinkaasaan banacay khabiid waaye xisaabtiisa lama fahmi karo maxay nooga bedeleen macalinkii fiicnaa sabti imtixaan waaye kuma laho sabti maahine maanta keena imtixaan waaba la iiga daran yahee iskoolkan marle maa la xiro waa ka raysan lahaa waa ka neebsan lahaa laakiin qof minankan joogto maa neebsanaysaa dhib kaaga roon ani waa yaabay dadkan qof uu la hadasho maa la waayay oo runta u sheegto maa la ii khasbaa ma rebi khasab miyaa cawo ma rebi maalin ma rebi waalidaa laydinka badiyey ani ammaan le siiya waalid oo ilmihiisa xasad u ah maa la soo arkay haddii iga naxaysiin wax dhibkayga ah ma ii khasbi lahayn qofta aniga rabo ma ii diidi lahayn sidaan rabo ii yeeli lahaydeen nasiib badanaa qof xor ah sida Sahre Yuusuf camal Axmed saacadan intee joogaa xafiiskiisa aas fadhiyaa malaha waxaan u soo mari waayey waa u sheegaa cawada wixii rabo ha dhaho dhibkan ma ku jiri karo maya ma sheegi karo ceeb waaye mushkilad kalaa imaanaysa lacalla haddii murankii maskaxdeeda ku rafanayay waxaa kala goysay sanqar iridka ka soo yeertay waxay dareentay qof saan culus oo u soo galay indhahaase uma kala furin way ismoogaysiisay aad bay u nabcayd inay cidi u soo gasho waxay la ahayd culays ka daran kii hore ee ay dareemaysay maanafay maxaa ku daaray maana way garatay waa codkii ay jeclaan jirtay ee hooyadeed weli indhaha ma kala furin farna ma dhaqaajin intay hooyo ku soo boodo oo dhexda isaga duubto labada dhaban kama dhunkan sidii caadada u ahaan jirtay markii ay dugsiga ka timaado maanadeedii maaha habartii oo qalbi jabsan xaaladeedana qadarinaysaa ayaa intay ku soo dhowaatay codkiina u sii dabcisay oraahdii hore u raacisay gabray dharka iska bedel mugoo khadaysidee khadadii waa kaa qaboobaysaaye khadadiina ma rabiye ammaan aaniga helo ayay si kulul ula soo booday markii hooyadeed hadalkii ku celcelisay markuu hadalkaasi afkeeda ka baxay kadib ayay la soo xumaatay oraahdaas aan asluubta lahayn ee iskeed uga soo fakatay kamase toobad keenin ay caday
intay cabaar iyadoo ama kaag afka sacabka ku haysa ku dhegagtay ayay dib isaga laabatay iyadoo cagaha jiidaysa sidii abaanduule goob dagaal kusoo guuldaraystay. waa adduun cimrigaagoo dheeraada geel dhalayana waa kutsaa mamaanafay baa qofta sidani u dambeysay. aaway baarinimadii iyo dhiganweylkii, aaway qosolkii iyo qalbi furnaantii, aaway firfircoonidii iyo sheekadii macaanayd, aaway xishoodkii iyo xushmad ilaalintii, aaway dabeecadii dhan walba dahabka ka ahayd ee xamar weyn oo dhan ay caanka uga noqotay. habartii gabri ka qalloocatana ku halqabsan jirtay haddii nasiib leeyahay maanafay camalaan dhali lahaa. ay caddey wax ku cusub may ahayn gabadheedu qadadii ay maalintaas ku diiday iyo xushmad darradii ay ugu jawaabtay. horay buu yaabkii uga dhammaaday. baryahan oo dhan bay kala kulmaysay waxaas iyo wax ka daran. xanaaqu sankuu ka saaran yahay. erey kasta oo qof qoyska ka mid ahi ku yiraahdo way dhibsanaysaa. hadduu xun yahay iyo hadduusan yahayba wuxuu la yeelanayaa dhadhan kharaar. markaasay ama ka xanaaqaysaa ama xargo adag isku celinaysaa, uurkana ka gubanaysaa. xataa sheekada caadiga ah ee xubnaha qoysku ku sheekaysanayaan hadday goobjoog u tahay way dhibsanaysaa. waxay la noqonaysaa qowqow aan dhadhan lahayn. markaasay uurka iska odhanaysaa yaa iga aamusiya. marmarna inta ay ka kacday qol cidla ah isku soo xiraysaa oo fikiraysaa. cunto u dhadhanta goor u dambaysay garan mayso. wakhtiga cuntada marka uu soo dhowaado way ka naxdaa. markii hooyadeed ku khasabto ayay korka ka taataabataa, marna way ka dhuumataa si aan loogu khasbin. waa taas baabaaday ee dharkeedii ka yaraaday. aaway bilicdeedii indhuhu kala boobi jireen, rag badan oo u soo baratamayana ku hungoobeen. waa taas ilgo'dee abaarsatay sidii ubax gubar waaqaa koriyey kadibse dabeyl xagaadharbaaxooyin naxariis la-aaneed ku dhufatay. waa kaaf iyo kala dheeri maanafaydan madoobaatay ee murugada awgeed maryihii iska bedeli weyday iyo tii 5 bilood ka hor meeshii ay soo gashaba muusikada farxaddu u yeeri jirtay, dunidoo dhanna quruxda iyo qosolka ka buuxin jirtay. bal isku fiiri saaka iyo subaxdii iyadoo sida dheemanta u hilaacaysay ay taagneed shaneemada xamar horteeda. subaxdaasi taariikhda maanafay meel weyn bay ka gashay. inta ifka saaran tahayna maskaxdeeda ka go'i mayso. markay in yar joogtaba way ku soo dhacdaa. waxaa hor yimaada muuqaalkeedii ilqabadka lahaa ee marba gaari isu taagayay iyana ay kasii jeesanaysay. waxay qabtay dharkii dugsiga, buugaagtiina gacantay ku haysatay. waxay sugaysay tagsi dugsigeeda usii dhoweeya. tagsigii waa uu ka soo daahay. iyadoo weli sugaysa ayay gadaasheeda ka maqashay cod aan ku cusbayn una caddayn oo ka qosliyey. maanafay allah waa iyadii. dib bay u jaleecday, isla markiina way ku oroday. markay aqoonsatay, waay sahra ii waranabaayo. waa laysku dhegay, dhabanadana la iska dhunkaday. naa ii waran intee ka baxday beryahan? allah shimaa isu keen dambaysay 1 sano camal. waad dhan tahay. haye haddii shaqo la helo dad maa la soo salaamayo maaho sahra? qof xun baad noqotay maana. maxaad iigu iman weyday? waad og tahay inaan anigu guriga firaaqa ah oo keligay aan deganahay. caawadan ku iman haa. waayahay caawaynu si fiican u sheekaysanaynaa. hadda shaqaan ku ordayaaye adigu dugsi baad u socotaaye. caawa 1 saac baan ku sugayaa. ciddiina igu salaam. yaaya macaantay. haye cabaay jaw hee. sahre yuusuf ballantaasi waxay ka ahayd afgubaadsi reer magaalnimo, laakiin maanafay culays weyn bay ku lahayd. wayna kasii fikiraysay maalintii oo idil. yaa u sheega booqashadaasi waxay soo wado? yaa ogeysiiya in ay u horseedi doonto inqilaabkii ugu weynaa ee nolosheeda ku dhaca? yaa uga diga inay noqon doonto albaab ay ka gasho tijaabadii ugu khatarsaneyd ee soo marta? tijaabo kharaar, haddana macaan, xanuun iyo xiise isku dhafan. maanafay ma ahayn gabadh habeenkii meeraysata. inkastoo aan aad loo ilaalin jirin sidii walaasheed iisha, haddana dabeecadeeduba ma ahayn gabadh bixbixidda jecel.
aabaheed xaaji muumin kama shalaayin makhabyanimadii uu ku daayay iyo waxbarashadii uu ogolaaday. wuxuu kuwaana qaatay makhabyanimadii lagu khasaaray ee gabadhii ilmihiisa u weyneyd Iisha. waxbarasho iyo mustaqbalba Iisha way seegtay dhowrsanaantii gabarnimo ee aawadeed guriga loogu xabisayna waxay noqotay biyo col loo dhaanshay. xalqada koowaad halkaasaynu ku joojin doonaa. la socda xalqada labaad muuqaalkan like saar sidoo kale channelka subscribe kare. aad baad u mahadsantahay.